warbixinada kale ayaynu markaasi dajow sii kala tuuri doonaa oo aad ninkii Roberto Lewandowski ahaa waxa markaasi uu ka careysan yahay guuldaradii abaalmarinta Ballon d'Or ee Messi uu ka guuleystay booska labaadna football abaalmarinta ay bixisay barka uu kaga dhameystay marka wuxuu aaminsan yahay hadii uu sii joogo 2 sano oo macnaa wax qabadkiisu aad u fiicnaa uusan ku guuleysan maxaa la sheegay abaalmarinta Ballon d'Or ay haddana ka dhigan tahay in mar kale hadii uu dadaalo xataa uusan heli karin marka sidaas darteed wuxuu aaminsan yahay in marka uu kooxdan isaga tago hadii uu ka hoos ciyaaro Salim Sey marka ku dhawaad taqaana Salim Sey kubadda cagta Perez Florentino Perez madaxweynaha Real Madrid hadii kooxdiisu iska dhiibo macnaha maxaan arki jiray dal heelan iska dhiibo maqli jiray haduu iska dhiibo kooxda Real Madrid sanadkan soo socdo wax qabadkiisa san haduu sii noqdo Realna uu koob kula guuleysto in abaalmarinta Ballon d'Or cid ka xigta aysan jirin Messi ayaa sheegay Ronaldo xataa wax walba sameey marka wuxuu rabaa in uu markaa xil ciyaareedkan dhamaadkiisa uu ka tago Bayern Munich oo ku biiro kooxda kubadda cagta ee Real Madrid dhinaca kalena sheekada waxa ciwaan looga dhigay waxaan door bidayaa in aan dhinto halkii aan Real Madrid ku biiri lahaa maxay ka haleys sidaas waxa leh Gerard Piqué ما runtii soo daafaca kooxda Barcelona ee Gerard Piqué oo 13 sano ee ugu dambeeyay markaasi asaasi u ahaa daafaca dhexe ee kooxda Blaugrana waxa markaasi uu leeyahay in iska dhintaaba lii qaatay halkii aan ku biiri lahaa Real Madrid Piqué ayaa isagoo dhool cadeynaya sheegay in uu geeri ka xigo in uu xirtimaaliyada kooxda cadcadka waxaana uu yiri gabi ahaanba waa wax aan macquul ahayn waan dhiman lahaa halkii aan Real Madrid ku biiri lahaa daafacan Isbaanishka ah oo 34 sano jir ah intii uu joogay kooxda Barcelona waxa uu kula guuleystay 8 horyaalka La Ligaha ah 7 Copa del Rey iyo waliba 3 Champions League isagoo sidoo kale xulkiisa Spain la qaaday koobka qaramada qaaradda Yurub ee Euro iyo sidoo kale koobka adduunka tababaraha kooxda kubadda cagta ee Barcelona Xavi Hernandez ayaa markaas xog ka helay mid kamid ah maamulka kooxda kubadda cagta ee Blaugrana xogtaas oo ku aadan dhanka suuqa kala iibsiga ee bisha Janaayo sidoo kale xagaaga soo aadan Barcelona waxa markaas ay ku jirtaa xaalad adag ee dhanka dhaqaalaha ah waxaana ay cid kasta isweydiinaysa bal hadii ay awoodi karto in suuqa January ay markaas markaas sameyn karaan saxiixyo laakiin Xavi ayaa sida ay wararku sheegayaan wuxuu xog ka helay mid kamid ah maamulka kooxda kubadda cagta ee Barcelona ka uu ku wargeliyay inay awoodi karaan in ay sameeyaan saxiixyo suuqa jilaalka iyo kan xagaagaba si kooxdu markaas dib u habeen loogu sameeyo marka war farxad la ay u noqonaysaa Xavi taageerayaasha Blaugrana tababaraha kooxda Manchester City ee Pep Guardiola waxa uu noqday macalinka sida ugu dhaqsiyaha badan ku gaaray 150 kulan oo guulo ah horyaalka Premier League taariikhda hogaamiyahan marka Isbaanishka ah ee Pep Guardiola ayaa markaasi 150 guulo horyaalka Premier League waxa uu ku gaaray kaliya 204 kulan hadii aan eegno macallimiinta kale ee sida dhaqsiyada leh ku gaaray 150 kulan oo guulo ah Premier League waxa markaasi ku soo xigay Jose Mourinho oo isaguna 230 kulan ku gaaray Sir Alex Ferguson oo isaguna 247 kulan ku gaaray 150 kulan oo guulo ah Premier League iyo hogaamiyihii hore ee Arsenal ee waqtiga dheer Arsene Wenger oo isaguna 258 kulan ku qaatay 150 guulo horyaalka Premier League taariikhda Manchester United waxa leeyahay guul ma aysan gaarin warka arab waa afarta ciyaaryahan arabaani guul ma aysan gaarin lagu leeyahay Manchester United horyaalka Premier League ah guul horyaalka Premier League ama aysan gaarin Manchester United tan iyo bishii October macalinka cusub ay magacaawdeen Ralf Rangnick isagoo markaas hawl adag ayaa hortaala oo kooxdan inuu dib u dhis xoogan ku sameeyo oo markaas adkeeyo ayaa markaas laga rabaa waxaana uu hadda maamulka kooxda Manchester United ka dalbaday 4 xidig inay ula soo saxiixaan oo ay kooxda Old Trafford ka arrimisa keenaan mid kamidana waxa uu ka tirsan yahay kooxda Chelsea Ralf Rangnick isagoo markaa kooxda ma hogaamin doono kulanka caawa waxa sii wadi doona Carrick laakiin sawiradiisa waxa lagu arkay garoonka Old Trafford waa uu joogaa Ingiriiska waa yimid Old Trafford isagoo sawiro ku galaya aan arkay xalay haddaba 4 xidig uu ka dalbaday maamulka kooxda Manchester United macallin Ralf Rangnick waxa markaa ay kala yihiin Erling Haaland oo ka tirsan Borussia Dortmund
isagaa ninkan soo saaray waana uu maqlayaa macalinkan da-da weyn ee noloshiisa markaasi horumarka inuu sameeyey ka dambeeyey xidiga kale waa midka ka tirsan kooxda RB Leipzig ee la yiraahdo Christopher Nkunku waa ninka saddexleeda ugu shubay Manchester City Champions League ciyaaryahanka kale waa ninka la yiraahdo saddexaad Amadou Hadera ninka la yiraahdo waa qad dhexe oo cajiiba waxaana markaasi ugu dambeeya weeraryahanka kooxda Chelsea Timo Werner afartaas oo dalbada Soomaa Timo Werner ana ku shaqeynaa sidii loogu shaqeystay ma Jarmal ku arka ninka